waxaan idin sheegaynaa abaartu aad iyo aad bay u adag tahay dadkeena wuxuu halis ugu jiraa inuu haraad iyo gaajo iyo xanuun u dhinto waxaan aad iyo aad ugu baaqaynaa dadku inay fadhiga ka kacaan runtii waa dadaal aad u weyn waa u jeedaan in يعني شل يسود بري جدوهود لعكت أنت أصلي يقول نقول سوقارته لكن وحلو بهاي هي لبن لاب يعني أي لو بهاي هي سيدا درادد نفرق هلا قعو وحنكور جنيا علماء إن شاء الله تعالى الشيخ داهر أو عبدي iyo Sheekh Ahmed Daahir oo isaga dambeyn doona oo aan rajayn doono inay dadka u diraan qayladaan iyo inay fadhiga ka kacaan billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilahi subhanahu wa ta'ala wa hina ilayhi wa ta'awanu 'ala al-birri wat taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ربي إنساس إن أمر إياه إنما المؤمنون إخوة ولا تدك مسلمين مؤمنين تنوا ولا له سدا هدبا شيخ فؤاد وشيغي أبارتو وآد بأسوء أتكاتي تدك الصومالي ده وحن كو أغنهي إن يسوق رمضان سدا هدبا ولا لها العقد صادري وميلا بدن كسو kala diray guduhu ma aragtay gudaha kamida dibadda waa la isu gurmadaa maanta qayladhaanta taagani waxa weeye horta ilaahay baa inaga bixin kara subhanahu wa ta'ala ilaahay waxaan baryaynaa raxmad degdeg ah hal daruur baan nagu filan bari iyo ma aragtay galbeed iyo koonfur iyo waqooyi iyo gobolada dhexe dhammaan marta baa inagu filan إلهي بان قبعها هوس دغنا الناس سبحانه وتعالى إنه مارتي رفاتك هي أبارته هي بربر هي بابا أجوجا إنه إنك صار سبحانه وتعالى وحلو باهي لكن إنه وقعنه وحلو باهي أي تدخل صومالي ذا إنه ماركتي وحيا لصوص شيء وصور ردو ذا دركتين جوده هدات جوكتان يدبد هدات جوكتان قف كستوحو أودينه بحيو ninka faqiirka ah $1 ma waayo $1 inuu bixiyo ka dhaxdhaxaadkii ha bixiyo $100 $200 $500 ha bixiyo tijaartuna lacagta ha bixiyaan maanta waxaan taaganahay Soomaaliya dadkii loo oran jiray ama wadankii Soomaaliya loo oran jiray haduun Ilaahay subhanahu wa ta'ala degdeg inooga qaadin waxaanu khatar u nahay dhowr iyo 20 sano wixii aan ka meermeerayno Ilaahay naga kaafiyay oo agaala inaan gacanta ka gallo kana isnaan gallo وحوتيال إن قالوا إن ودك الله فاروق يو لقيته فما تهرس النهي إله ما أرنتنا أنا قصاري كرا لكن قيل دام وحسمين كرنا ديك جوجين بدن ما أنت وحوبها عن حوله ندبت جوجي وتبركوا كله يدتك الراعية حولها دبت جوجا وحوله مجالود إلى هيد والصومالي إلى هيد وي ميل ما أنت بتبادينا مؤجن كونفر باورونا جرتي koonfurna abaartii way joogtaa meel kasta waxa weeye waa abaar laga soo bilaabo raas kambooni ilaa law yacade ilaa raas casayr dadka degan u dhaxeeya waa abaar Soomaalida galbeedka roonaan jirtay iyagana waa abaar walow iyaga waxoogaana dhaamaan oo jiilaal ay tahay abaar iyaga hadda haysi jirin oo jiilaal tahay galbeedka shishe iyagana waa haysaa roobka ku yaraa guga ah maanta waxaan u baahanahay dad iyo duunyo ba waxaan baan biyo baad waxay rabaan xoolihii in calaf la siiyo in bariiska loo kariyo galeyda oo la siiyo ama 2 kiilo ama kiilo neefkii maalintii sida dadku ay maaragtay wax u karsanayaan iyaan maanta u baahanahay taasaan u baahanahay walaalaha marka dibadda jooga iyo walaalaha gudaha ku jira oo Ilaahay wuxuu siiyay maanta waxaan rabnaa inay fadhiga ka kacaan in maaragtay kuntiga dhiisha la iskaga dhigo in xoolaha la badbaadiyo oo dadka la badbaadiyo xoolaha in la badbaadiyo weey xoolahaasi waa xoolihii lafdhabarka inoo ahaa oo dhaqaalaheena iyo kicideenna iyo sharafteena iyo waxaan dhoofinayno iyo waxaan soo dejinayno xoolihii aan ku iibsanayno weey oo inooga fiican badrool oo inooga fiican macdan xooluhu waa kuwaas xoolahaas waxaan u baahanahay maanta in gunta dhiish la iska dhigo aynu kacno والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
من فرج عن مسلم كربة من كرب اليوم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة marka in la dadaalo weeye muslimkuna waxa weeye almu'minu mir'atu akhihi walaal baan sunnahay مثل المؤمنين في دوادهم وتراحمهم وتعاطفهم معني حديث كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منهم عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر يعني وحوي ولا سحن وصداه المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا نحريس إن لسنا حريسته ووحل إسلقبته وحوي إلهي سبحانه وتعالى بقول نحريسات وأبوري نحريس كلي ولك أسود دجيي نحريس سواء تطدك يدنيا يا مخلوقاتك أيسكون نحريسنا ياوي وحلو بان ما أنت إن نحريسنا سومالي هداتين ميرك جوكتان با إن ما ركت سيدا ولا لها هذا سود ذالي وقدية بحيي والله حاجة نوصل دري أنت دون دوا مبارك أنا قلنا إن شاء الله وحن كده دارينا العقد إنه ماشي لنوجو ليبي أنا وإلهي وقول دوانينا ووقت جاي وكوب حنينا إن ما أركت سيدي هذا بيسميه شيخ فؤاديو شيخ محمد معلميو وصور يجي ونور بدن صور مري شيخ محمود حاجي شيخ عثمان شيخ ياسين سلطان عبد الغني dad badan oo la socday ay soo wareegeen oo meelo badan soo maray ciise iyo dad badan ay soo wada wareegay Sheekh Ahmed Yusuf Taad baa isna kamid ahaa meel ka soo mareen oo gawaaridoodii ay qaateen gawaaridoodii way shidaal ku shubteen kolkaan arnay kharashkuna ugu badanay inaan gaari kireysano gawaaridoodii bay kharash ku shubteen iyagoo ula jeedadu ay tahay xoolahana inay badbaadiyaan iyaguna waqtigooda iyo tamartoodana ay ku bixiyaan wax xisba la yiraahdo Ilaahay dartii ana inay ugu kacaan dadkan ummadana waxay u baahantay marka amaana Soomaalidu waxay u baahantahay maanta toobad keen bay u baahantahay waxaan keenay waa dunuub madaxda ka hadla maaragtay meelaha la isugu imanayo roob doonta waxaan u maleeynaa xogaa inay ka sheexayeen inay yiraahdaan hal toobad keeno Ilaahay ha loo noqdo oo ma aqaan wax jira كلمة إنك كوريسانيات موديسان وحوي ما أنت وحلو بأي إلهي إن لا نقضه إلهي إن لا توقه إلهي إن لا توبت كانوا ذنوب تين لقيت هذا ما أنت السدية أو صومالي ولك توبت كاني ودلكم كميديا وحيالا بدن كميديا هي إلا لقيت توبت كان الله بأي هي مرك إلهي هو إنه حريصنا إياه روب كنا هو إيمانا إياه إن شاء الله وأنه دأ إياه وحلو بأي مرك إن السنة حريصنا سو إلهي إنه قلنا حريصته صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد السلام ما أنت بش عربية تهاي تضبي طبعا وأتهاي بش اللحاد وجبد الآخرة سنة كوي هاي كوني أفر بغل سودن يسديد وهجرية وحن جوجنا مقالة بوساسود وحن هو رمينا أو قارسينينا ولا لها إسلام كا وكذا قنانا إياه ولا له هذا إسلام كا وحن قارسينينا عليس باجرة عليس inkastoo midkii aakhira uu ka culus yahay abaar xun baa jirta waxay dadka la soo gaarsiiyay oo dadkoo la keenay dal iyo dibadba wixii biyo baa loogu dhaanshay wax kale lama qaban waxa weeye raashin xun baa jirta oo waxa jirta nafaqa daro ilmihi maalin dhaweedin baa ila soo hadlay wuxuu ugu yiri hortayda waxa yaal bariid cad oo wax lagu daray ay jirin waxba lama duljoodin walaalo waxaan ka codsanayaa buu yiri saliida alxayaada inaad meeluna iisoo tuur aan suuqa kaga soo qaatay buu yiri waa saliid alxayaada wuxuu yiri xoolihii waxna waa ay dhaafeen waxna caatay la joogsadeen wax qaadanayana ma laha way waxaan masaliid alxayaada wax ku darsanaysa cunaysa wuxuu yiri walaalow saliid weeye waxaan dhuunta waa mari waayay bariidka oo iska caday waxa la sheegay ilmo waxa lagu habo la waayay oo caana loo waayay oo caana booro loo waayay waxay sheegeen guriyo dhan oo intaas ay leeyihiin shan ilmood baa sirtoo saddex banaanka kaga imi midna hadda naftu qalaysa labana waa leedataa waxay tahay meesha abaar xun baa jahada ka jirta raashin xuma ka jirta daawo la'aan baa ka jirta caana darri baa ka jirta biyo la'aan baa ka jirta culimada waxa lagu kabsaday dadka wixii la siinayay biyaha waxa la yiraahdaa biyaha nolosha asalka ah qofka haduu biyo cabo waxa suurtado qoryo qalalan inuu jajabsan karo laakiin hadii bariid loo geeyo iska maaragtay wax ku biyo lahayn oo idaan lahayn hadii wuxuu laqayo ma aha way waxaan marka u soo jeedinaynaa marka u horeysa ilaahay baan kaalmo weydiisanaynaa ilaahay baa cid u gargaari kara ilaahay baa u heeli kara ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo gargaar ilaahu noo heeli
waxaan marka ummadda islaamka dhammaanteed u soo jeedinaya in ilaahay baryadiisa la badiyo oo habeenkii la badiyo oo goortii geelinka dambe oo habeenka 8 ilaahay la baryo waxaan kale u soo jeedinaynaa ninkii waxuun raashinaya waxaystay saddexda waqti walaalihiis ha ugu dooqo walaalihiis ha loo gargaaro islaamka ha loo gargaaro ilaahay wuxuu leeyahay nabigeena wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wallahu fi awn al-abdi ma kana al-abdu fi awn akhihi adoonku ilaahay kalmadiisu ku jira ninkii doonaya in ilaahay u kaalmeeyo hadee ummadda ha u gargaaro way ilaahay wuxuu leeyahay in tansurullaha yansurkum hadaa rabbi u hiilisaan ilaahay ma hilbu kaaga baahaya marka diintiisa u hiilisaan oo ummadaas adoomihiisa u hiilisaan ilaahayna waa idin hiilinaya way marka hiilka ilaahay waxaynu ku helaynaa inagoo diintana u hiilina u gargaaro ummadda islaamkaana u gargaaro gaaladu waxay doonaysaa inaan waxba la qaban in la yiraaho wadamada hodanka ah noo soo gargaara intaas ay rabaan markaas waxay inoo soo qaadaan raashin dhacay oo suus ka buuxsamay oo sumaysan wadamada qaarkood waxa lagu yiri baridka ay soo sameeyaan caag bay ka soo sameeyaan caag qofkii cunayna caloosho qabsaday balaayo iyo jirka ka raacday marka waxaan leenahay walaalaha ummadda ayay qaxooti noqon oo yay soo gelin buushashka loo sameeynayo oo yay noqon kuwa saxaabada gaala u dhiganayee wadankii dadka ha lagu celiyo ha loo gargaaro xoolihii calaf baa la siiya oo ilmihii waa u jeedaan sida ay yihiin oo abaarta biyo la'aanta ka dhacaysa ha loo gargaaro ummadda gacanta ha loo fidiyo ilaahay idinkiis khayr baad helaysaan adduunyo aakhiraba waxaan arintaa u soo jeedinaynaa ummadda islaamka ah oo ka naxaya walaalahood oo doonayo inay diintooda ku dhaqmaan oo doonayo nolol inay yeeshaan ummadda Soomaaliya waxay ku dhaqan tahay oo ku nooshahay meel kasto ay joogto xoolaha way xoolaha haday ka baaba'aan noloshooda waa baaba'aysa marka arinta waxaan ku soo gabagabeynayaa ummadii ha loo kaco masaajidada ha laga kaco dukaamada ha laga kaco sidii aad hadda awal bixiseen gacan kale ku celiya oo mar labaad ku celiya intaynu hiil helayno laakiin ilaahay waxaan ka idaynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa gargaarkiisa ilaahu noo soo gargaar ilaahu noo soo gargaar ilaahu noo soo gargaar sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi